ninka ayaa si fudud dubbihii birta ahaa ugu dhuftay mootadiisa korontada ku shaqaysa. mootadii oo qiimaheedu ahaa $1,000 ayaa si lama filaan ah isu beddeshay gaari sports ah oo qaali ah kana qiimo badan malaayiin dollar. markaas ayuu ogaaday in odaygii xikmadda badnaa ee siiyey dubbaha mucjisada ah uu run sheegay. waxaas oo dhan waxay dhaceen shalay. dubbihii ninka waxaa biyaha ku tuurtay saaxiibtiisii hore. isagoo aan garanayn waxa uu sameeyo ayaa si kedis ah oday uga soo baxay webiga isagoo sheeganaya inuu yahay ilaaha webiga. hal gacantaag ayuu ku soo saaray 3 dubayaal oo kala ahaa dahab, qalin iyo bir. wuxuu ninka weydiiyey dubbihii webiga ku dhacay inuu ahaa dahab mise qalin. inkastoo uu jeclaa inuu yidhaahdo waa dahab, haddana runta ayuu sheegay oo wuxuu qirtay inuu ahaa dubbe bir ah. ilaaha webiga ayaa aad ula dhacay daacadnimadiisa, markaas ayuu siiyey dubbe mucjiso ah oo awood u leh inuu wax kasta kor u qaado marka lagu dhufto. kadibna biyaha ayuu dib ugu laabtay. ninku si fiican uma fahmin waxa loola jeeday ilaa uu arkay bir yar oo dhulka taala. wuxuu go'aansaday inuu tijaabiyo dubbaha. markuu kor u qaaday, dubbihii si weyn ayuu u weynaaday, birtiina markiiba waxay isu beddeshay dahab saafi ah. ninkii wuu yaabay, xitaa wuu qaniinay si uu u hubiyo inuu dhab yahay. markaas ayuu garwaaqsaday inuu taajir noqon karo. isla markiiba wuxuu aaday dukaan dahab lagu gato, wuxuuna dahabkii ku beddeshay $50,000. isagoo ahaa makaanig mushaharkiisu yar yahay, lacagtaasi waxay ula muuqatay riyo. intuu ka fikirayay waxa kale ee uu dubbaha ku samayn karo, ayuu arkay gaari raaxo leh oo qaali ah oo waddada dhinaceeda yaalla. lamaanihii gaariga lahaa markii ay arkeen isaga oo dubbe sita, waxay ku yidhaahdeen inuu ka fogaado gaariga, iyagoo leh haddii uu waxyeeleeyo inuusan weligiis bixin karin qarashka dayactirka. ninkii aad buu uga xanaaqay kibirkooda. wuxuu go'aansaday inuu mootadiisa korontada ku shaqaysa ku dhufto dubbaha si ay dahab un